Afartii bisha February oo ku beegnayd maalinta Sabtida ah, waxaa dunida looga dabaaldegayay Maalinta Kansarka Adduunka. Marka waxaan wax yar iska dhahaynaa haddii Ilaah yiraahdo kansarka iyo saameynta uu dunida ku leeyahay iyo waxa uu yahay iyo noocyadiisa iyo inta laga ogyahay iyo ugu dambeyn xoogaa wacyigelin oo ku saabsan sida qofka uu naftiisa iyo qoyskiisaba uga badbaadin kara kansarka. Kansarku waxa uu ka mid yahay burooyinka jirka ka soo baxo. Burooyinkaas waa laba qolo: burooyin aan faafin oo loo yaqaano benign tumors iyo burooyin faafa oo loo yaqaano malignant tumors ama cancers. Marka af Soomaali ahaan la dhaho kansarna waa dhihi kartaa, dadka qaarna waxay dhahaan kankaro. Marka anaga waan iska isticmaalaynaa ereyga kansar. Kansarku wuxuu ku dhici karaa xubin kasta oo jirkeena ka mid ah, hadday ahaan lahayd maskaxda, hadday ahaan lahayd wadnaha, sambabka, beerka, kelyaha, lafaha, dhiigga, dhuuxa, xataa maqaarka, kulli waa ku dhaca. Kansar kastana waxaa loogu magac daraa hadba unugyada uu asiibo iyo waxyaalaha kasoo muuqda. Marka kansaradu si guud iyagoo sidaas u kala duwan oo xubin kasta ku dhici kara, haddana waxyaalo ay ka siman yihiin ayaa jirto oo ah qeexitaanka maxaa kansar la dhahaa. Kansar waxaa la dhahaa markii unugyada jirkeena unugyo ka mid ah ay u tarmaan ama u qaybsamaan ama u koraan si aan xakameysnayn oo aan kontaroolnayn oo aan la joojin karin. Sida caadiga ah unugyada jirkeena si joogto ah ayay u sameeyaan isbeddello, ha ahaato inay koraan, ha ahaato inay dhintaan, ha ahaato inay dhashaan. Marka isbeddelladaas joogtada ee jirkeena ku jiro unugyadiisana ay sameynayaan waxay tusaale u tahay nolol. Waxayna istaagtaa maalintaan dhiman. Waa kala duwan yihiin unugyada qaarkood. Maalintaan dhalanay wixii ka dambeeyay isbeddello ma aysan sameyn. Unugyada qaarkoodna si maxaa la dhahaa waxay isbeddel u sameeyaan maalmo gudahooda. Marka waa kala duwan yihiin, laakiin waxaa qasaba in jirkeena unugyada uu ka samaysan yahay ay sameeyaan isbeddel joogto ah. Marka laakiin isbeddelkaas ay jirkeena sameynayaan unugyadiisu waa mid xadidan oo laga warhayo oo qaladaad haddii uu ka dhaco la saxo oo xilliga loogu talagalay la sameeyo oo faktarro iyo waxyaalo control ay jiraan. Haddiise si aanan kontaroolnayn ay unugyadaas u sameeyaan taran, waxaa imaanayo in uu ka dhasho cudurro oo ugu muhiimsan yahay kansarka. Laakiin mar kasta oo unugyadaasi ay si aan xakameysnayn u koraan, macnaheedu maaha inay kansar bis yihiin. Burooyin kale ayaa jiro, laakiin burooyinkaas kaleeto si kasta oo ay buro u yihiin, in kasta oo ay weynaan karaan, haddana haddiiba aysan faafaynin buradu, lama dhihi karo kansar. Waxaan dhahaynaa waxa waaye benign tumor loo yaqaanaa. Aan usoo laabano marka kansarka aan usoo laabano. Maadaama aan dhahnay kansarka wuxuu ku dhici karaa xubin kasto, kansarada waa badan yihiin, laakiin waxaa la fiiriyaa kansaradee dunida ugu badan. Waxaa kaleetoo la fiiriyaa kansaradee dadka ay badi u dhintaan. Waa kala duwan yihiin. Tusaale ahaan saddexda kansar ee dunida ugu badan waa kansarka koowaade waa kansarka ku dhaca horaadada amaba naasaha. Kansarkaas wuxuu ku badan yahay haweenka, khaasatan haweenka ka sarreeya da'da 40 sano. Waxaa kaalinta labaad ku jiro kansarka ku dhaca qanjirka ragga oo loo yaqaano prostate kansarka. Waxaa kaalinta saddexaad ku jiro kansarka ku dhaca sambabada oo loo yaqaano lung cancer. Laakiin xagga dhimashada markay timaado, maadaama kansarka ku dhaca sambabada uu yahay kansar aan la ogaan karin ilaa inta uu ka faafo, waa kansarka ugu dhimashada badan adduunyada. Laakiin labada kale oo kansarka naasaha ku dhaca ama horaadada iyo kansarka qanjirka ragga ku dhaca ee prostate kansarka, labadaasi maadaama in la ogaado ay ka sahlan tahay marka loo fiiriyo kan sambabka, iyagu ma soo galayaan liiska kansarada ugu dhimashada badan. Haddaba markaan isdul taagno saddexda kansar ugu dhimashada badan, midka koowaad waa sheegnay waa kansarka sambabka ku dhaca. Labada kale ee kaalinta labaad iyo saddexaad galaya waxaa waaye kansarka ku dhaca mindhicirrada waaweyn iyo saxaro-sidka oo loo yaqaano colorectal cancer. Macnaha waa kolonka oo ah mindhicirrada waaweyn
ama xiidmaha waaweyn, iyo rectum-ka oo ah meesha saxaradu ku ururto oo ah tubo yar oo toosan. That's why loo bixiyay rectum, waa toosan tahay. Intaysan saxarada banaanka usoo bixin meesha ay ku ururto waay. Marka saasaan waxaan u dhahay saxara sid ma ahan erey cilmi ah oo sax ah, laakiin waa sida ila noqotay in ereyga ugu habboon af Soomaali ahaan uu noqon lahaa. Sidaas ayaan is dhahay. Marka colorectal cancer aa la dhahaa, waa kansarka ku dhaco xiidmaha waaweyn iyo meesha saxarada ku ururta rectum-ka loo yaqaan, ama saxara sidka ereygaas hadda iska isticmaalaynaa. Kaasaa marka wuxuu noqonayaa kan labaad. Waxaa jiro kaalinta saddexaad waxaa ku jira marka kansarka ku dhaco xubin loo yaqaano ganaca. Waxaa laga yaabaa inaanan isla wada fahmin ganaca Soomaalideena. Ganaca waxaa la dhahaa waa xubin ka mid ah xubnaha ku jiro uurku jirta. Xubinkaasu shaqooyin badan uu qabtaa. Afka cilmiga waxaa lagu yiraahdaa pancreas. Xubinkaas tusaale ahaan waxyaalaha muhiimka oo qabto waxaa ka mid ah qayb isaga ka mid ah waxay qabataa in ay soo dayso maado la dhaho insulin oo badi dadka ay maqleen. Maadadaas haddii ay si fiican u shaqeyn weyso qofka uu ku dhaco cudurka macaanka. Marka xubinka muhiimka ah ee waxaas koontaroolo ee dheecaankaas iyo dheecaano kale oo badan soo daayo yaa waxaa la yiraahdaa pancreas. Af Soomaalina waxaa lagu dhahaa ganac. Marka kansarka ku dhaco asigana runtii waa very deadly waay. Sababtana waxay tahay waqti lama ogaado hore. Waxaan rabaa meesha inaan uga faa'iidaysto inaan ku dul istaago. Maxaa keenay kansarada ku dhaco saddexda xubin aan hadda soo sheegnay in dadka ay badi u dhintaan? Waxaa keenaya waxay tahay xilli hore lama ogaan karo. Tusaale ahaan kan hadda ugu dambeeya aan sheegnay liiskan dhimashada ugu badan kansarada leh uga jiro saddexaad waa kansarka ganaca. Runtii ganaca iyo xameetiga iyo kansarada ku dhaco khatarta ay leeyihiin waxay tahay waxaa la ogaadaa marka ay sameeyaan waxa la yiraahdo metastasis. Metastasis waxaa la dhahaa marka ay faafaan. Faafitaankana waa dhib badan yahay oo markii uu kansarku uu gaaro xubno badan aaday u adag tahay xataa dunida horumartay iyadoo aan ognahay in dunida kala horeyso. Tusaale ahaan haddeertaan kansarkan dad caan ah u dhinteen. Ninka ahaan jiray aasaasihii shirkaddan Apple sameysa kombiyuutarada iyo taleefannada caanka ah ee iPhone-ka la yiraahdo. Steve Jobs wuxuu u dhintay kansarka xameetiga ku dhaca pancreatic cancer. Weliba isagoo waxa uu lacag oo haysto aanan malayn karin. Wax kasta la sameeyay, dhowr qalliin lagu sameeyay. Laakiin nasiib darro waxaa la ogaaday xilli uu ku faafay xubnaha uurku jirta badi. Ninkaas waxaa loo sameeyay qalliino waaweyn oo beerka looga bedelay oo qayb mindhicirada ka mid ah looga saaray wax badan. Laakiin haddana aada intii waa u geeriyooday. Marka muhiimadda tusaalahaas waxaan ugu soo qaadanaa waxay tahay waa qof ka mid ah dadka ugu caansanaa ee uu dhintay. Markii aad fiirisid kansarka dhibaatada uu ku hayo dunida, dunidu dhaqaale ahaan waa kala qaybsan tahay. Dunina waa duni horumartay, dunina waa duni aanan weli horumarin. Adiga u sarbeeb dunida soo korayso waxaa doonta ugu yar. Laakiin waa duni kaabayaasheeda dhaqaale, kan caafimaad, kan wax kasto ay liitaan. Waxaana ugu sii liita qaaradda annaga aan ka soo jeedno iyo dalka annaga aan ka soo jeedno ee Soomaaliya. Marka dadka dunida horumartay marka waagi hore waxaa la dhihi jiray waxaa ku badan cudurrada infection-ka ah, laakiin cudurradan kansarka ah saameyn badan kuma laha. Laakiin hadda xaqiiqdu waa isbedeshay waayo kansarku wuxuu xiriir la leeyahay hab nololeedka, cuntada, physical activity-ga ama dhaqdhaqaaqa jireed. Waxyaalahaas uu xiriir la leeyahay. Marka haddeertaan maadaama cuntooyinkii reer galbeedka ay cunayeen iyo dunida horumartay la warshadeeyay nafaqada aanan lahayn aanan fiicnayn kansarka lala xiriirinayo noola soo dhoofiyo walxaal midda organic-ga ah ee fiican ee annaga aan beernan iyaga loo dhoofiyo. Dhabta waa sidaas. Waxaa sahlan in Soomaaliya lagu cabo juice amaba cabitaan bacaysan oo lagu sameeyay galbeedka. Laakiin waxaa sahlan in galbeedka lagu cuno liin dhanaan Soomaaliya laga keenay. Marka waa garan kartaa isdhaafsiga iyo xadaaradaha maxaa la dhahaa kala duwan sida hadda isugu furmeena waxay keentay in cudurradii shalay deegaanada ku xadeysnaa haddeertaan ay international noqdeen oo dadkii u kala gudbeen. Waxa keenayana waxay tahay dabeecadihii iyo cuntooyinkii iyo physical activity lagu kala duwanaa. Hadda wax badan laguma kala duwano. Sidaas daraaddeed qaabka looga nool yahay London amaba looga nool yahay Amsterdam xagga cuntada yaa laga yaabaa in looga nool yahay Afrika iyo Soomaaliya. Waxaa laga yaabaa sida qof ku nool waddan reer galbeed ah oo intuu subaxii soo kaco oo
cuno cuntooyin aan nafaqo lahayn oo lagu cayilayo oo intuu soo hor fadhiisto shaashada ama game cayaaro ama Netflix fiirsado uusan jirkiisa u dhaqaaqin si lamid ah ama ka daran in Afrika saas dad ugu nool la helo. Marka wax kala duwanaansho badan haddii la fiiriyo xagga environmental factors inaysan jirin suurtagal waayo cancerska iyo cudurro kale oo badan waxaa contribute garayaan ama qayb ka qaataan laba factor markii lasoo koobo hadalka. Waxaa la yiraahdaa genetic factors amaba faktarada hidde-sidaha ka yimaada iyo waxa la yiraahdo environmental factors oo bey'ada ka yimaada. Environmental factors waxaa isku noqon karo meesha uu qofku ku nool yahay, cimiladeeda, cuntada, qaab dhaqanka, dabeecadaha uu leeyahay, waxa uu sameeyo, sida waxaas oo dhan waxaa la dhahaa environmental factors. Marka genetic factors kana waxaa waaye waxa hidde-sidahaaga ku jiro ee aasido. Marka haddii ay is saacidaan waxay keeni karaan in cudur gooni ah oo cudur hebel la dhaho u nuglaatid amaba uu ku asiibo. Haddii marka aan soo koobno muhiimaddu waxay tahay hadda waxaa sahlanaatay dunidii in cancersku si iska daba dhow ay u saameyso iyadoon loo fiirinaynin wadamada dhaqaalahooda badan yahay iyo wadamada dhaqaalahooda liito. Laakiin marka waxaa intaas dhan annaga nooga sii daran qaaradda Afrika iyo Soomaalida haddaan nahay. Wadamada horumaray si kasta oo kansarka ugu badan yahay facilitieska ay haystaan ee ah maxaa la dhahaa hadday ahaan lahayd marka ugu horeysa in dadka awareness la siiyo oo la wacyigeliyana waa naga horeeya. Marka uu qofka wax calaamada isku arko in maadaama la wacyigeliyay uu si dhaqso ah caafimaad u raadsado iyo la tacaalid iyo baaritaan waa nooga fiican yihiin. Marka uu raadsado si loo sameeyo early detection iyo diagnosis qalabka ay heli karaan iyo access-koodana waa naga fiican yihiin. Waxaa intaasna sii dheer markii la ogaado qofka inuu cudurka qabana in lala tacaalo iyo daaweyn inuu helana waa sahlan tahay marka la joogo wadamada horumaray maadaama ay haystaan wax kasta oo loo baahan yahay in lagula tacaalo cudurradaas. Laakiin annaga qaabka u noolaayeen oo u noolaanay cuntaday cunayeen waa soo dhoofsanay cunadeenii dabiiciga ahayd waa ka cararnay waa yeesnay. Markeena horeba Soomaali haddaan nahay maba ahaynba dadka physical activity iyo jimicsiga iyo waxaas u diyaarsan. Nooca cunto aan cunana markeeda horeba cunto fiican ma ahayno. Canjeero iyo bariis iyo baasta cunaynay midii dabiiciga ahayd oo organic ahayd oo qolofta lahayd oo fiber-ka lahaydna waa ka cararnaa waa ka faanaa. Marka intaasoo aan dadka kala dheerayna waxaa noo sii raacday ma lihin awareness fiican dadka wacyigelin fiican ma helaan kansarka faham fiican kama haystaan calaamadihiisa looma sheego cid isku taxallujiso ma lahan qaybta caafimaadka bulshadana weli waxaa moodaa in aanan focus badan la saarin haddana ma haysano qalab iyo facilities iyo serviceski looga baahnaa in cudurka lagu ogaado lagu dabiibo waxaas dhan ma haysano. Marka khatarta oo kansarka hadda Afrika ayaa dunida uga badnaanaysa. Waxyaalaha la odorasayo oo la sheego oo meelaha lagu soo qoro markaa fiirisid waxyaalaha aad ka naxaysid waxaa ka mid ah in la odorasayo 2030ga boqolkiiba 50 kansarada adduunyada ee carruurta waxay saameyn ku yeelan doontaa ama ay ka dhici doontaa Afrika. Macnaheedu waxaa waaye kansarada adduunyada ka jiro boqolkiiba 50 ee carruurta saameeya waxay asiibi doonaan carruurta Afrika 2030. Marka meeshaas aad ka garan kartaa waxa hadda xaaladeena ay tahay wax ka sii daran inay soo socdaan haddii aan la sameynin intervention amaba faragelin oo weliba degdeg ah haddii aan la sameynin. Marka xalqadan yartaa waxaan ugu talagalay bal inaan uga hadlo si guud kansarka iyo maxaa la dhahaa saameynta uu bulshada ku leeyahay iyo waxaas inaan si guud u taataabto. Marka qodobka ugu dambeeya marka wuxuu yahay sidee maadaama aan waxaasoo caqabadaha sheegnay inay jiraan uga hortagi kartaa. Wax oo runtii maadaama aysan jirin rasmi ah oo la dhaho waxaas iyo waxaasa kansar keeno aan la haynin si guud waxaa u baahan tahay inaad qodobada soo socda martid. Marka ugu horeysa waxaa u baahan tahay cuntadaada inaad xoogga saartid. Cuntadaada waa noloshaada. Qof waliba wuxuu cuno yuu caafimaadkiisa noqdaa. Marka waxaa isku daydaa waxa aad cunaysid iska fiiri. Ha cunin sun. Haddii aad sun cuntid ha filan caafimaad. Sunka weyn ma lahan sokorta. Soo iska ilaali inaad sokorta quruuraxda oo crystals-ka aad badsatid.
sokorta Ilaahay wuxuu ku sameeyay waxa aan cunno oo dhan sokor ay leeyihiin. Marka cambaha sokor uu leeyahay, babaayga sokor uu leeyahay, ma u baahnid inaad sokor kale ku dartid. Marka number one sokorta iska ilaali. Number two, believe me, digirta ayaa ka caafimaad badan, ka macaan, ka fiican, ka waxtar badan burgers-ka wuxuu doona ha ka samaysnaado. Marka waxaa xoogga saartaa in aad cuntid cuntada waddankaaga oo dabiiciga ah oo raqiis ah oo aad heli kartid xoogga saar. 3 iska yareey habeenkii markaad seexanaysid inaad casho cuntid hadaadan ka maarmaynin 2 saac ka hor cashay. 3 waa inaad si maalinle ah si joogto ah u samaysaa jimicsi ha ahaado 15 daqiiqo oo aad orodid, ha ahaado 30 daqiiqo oo aad socotid, ha ahaado 1 saac oo aad ruclaysid, ha ahaado biro iyo gym aad qaadid, whatever wixii markaas aad awoodid. Xataa haddaad shaqeynaysid, wax baratid, aadan fursad haynin, gurigaaga dhexdiisa ku boodbood. Laakiin yaysan ku soo marin maalin aadnan dhididin. Ugu dambeynna, Soomaali haddaan nahay waxaan aad u cunaa hilibka gaduudan hadduu aan lahay geel, ari, inkastoo lo'da aananba ku badnayn. Haddii dhaqaale ahaan iyo duruufta ay kuu saamaxayso oo aad awoodid, waxaa la doorbidaa hilibka kiisa cad oo ah hilibka doorada ama digaaga saa u taqaanid, iyo hilibka kalluunka ama malayga saa u taqaanid. Marka xalqadan intaasaan kusoo gaabinayaa. Insha Allahu tacaala waxaan isku dayayaa muuqaalada kuwan xiga inaan uga soo hadlo 3 kansar ee ugu badan, kadibna haddii noo saamaxdo duruufta 3 kansar ee ugu dhimashada badan. Inkastoo midka ku dhaco mindhicirrada waaweyn ama xiidmaha waaweyn aan hore uga soo hadalnay oo muuqaal aan hore uga sameeyay. Intaa mar kale aan ismaqli doono marka waxaan idinkaga tegayaa salaamullahi calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh.